هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى؟ wanaaji xiriirka aad ilaahay la leedahay, waayo guulxumada ugu horeyso waxay ka timaadaa xiriirka Allah oo aad xumayso. Noqo qof leh samir iyo dhabar adayg ku wajihi kara duruufaha ka hor timaada noloshiisa. Ma dhici karto inaad gaartid guul wax ku ool ah adigoo aan kufin oo aan kicin marar badan. Haddii aad ogolaatid dadka kale in ay maamulaan fakarkaaga iyo go'aamadaada, haddaba waxaad tahay qof laga roon yahay. Adduunku waxa ugu fiican qof taladiisa Ilaahay u gacan gashay. Haddii aad doonaysid inuu kaa joogsado walwalka, ha fiirin dhibaatooyinka ee fiiri nimcooyinka Ilaahay ku siiyey. Haddii aad raadinaysid saaxiib bilaa cayb ah, ogow waxaad noqonaysaa bilaa saaxiib. Saaxiibka dhabta ma ahan kan kuu qariya ceebtaada si uu u helo raalli ahaanshahaaga, balse saaxiibka dhabta ah waa midka ku xasuusiya mar walba Allah subxaanahu wa tacaala. Ha noqon qof afka kaliya wax ka sheega kana go'aamiya, laakiin ha wada socdaan go'aankaaga iyo waxqabadkaaga. Ku noolow kalsooni nafeed, ogowna dhib kastuu ku soo wajaha inuu mar ku dhaafi doono, uusan waxba ku yeelaynin, inuu kuu noqdo cashar mooyaane. Sirtaada oo aad qarsatid waa arrinkaaga oo gacantaada ku jira. Ogow maalinkuu sir kaa fagto, waxaa kaa fagtay waran maalin un lagugu duri doono. Mar kasta adduunka waxaa jooga qof kaa liita xaalka aad maanta ku jirtid. Marka Ilaahay ku shukri oo xamdi, adiga oo dhoola caddaynaya. Daacadnimada dhabta uma baahna caddayn. Mar haddii aad dhacdid kac mar labaad iyo mar saddexaadba, muhiimaddu waa inaadan joogin meesha aad ku dhacday. Inaad isdhibtidna waa arrin aad looga fiican yahay. Inaad isdhibtid waa furaha guul darada.